warar iyo faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax qasaare geystay oo hadda ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska ceelgaabta degmada Waabari ee magaalada Muqdisho wararka la helayo waa ay kala duwan yihiin laakiin jugta qaraxan xoogan ayaa laga maqlay degmooyinka ugu badan ee gobolka Banaadir iyadoo oo dadka shacabka ay maqlayeen jug culus isla markaana ay ku jaha wareereen halka ay tahay laakiin xogaha hordhacay uu helayo Cap TV waxay xaqiijinayaan in qaraxaasi uu ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho sifada uu dhacay iyo qaabka loo adeegsaday ayay warar kala duwan ka soo baxayaan wararka qaar ee hordhacay aan helayno waxay sheegayaan in qaraxa uu geystay nin isku soo xiray walxaha qaraxa isla markaana uu isku duubay gaari ciidana oo marayay halkaasi iyadoo uu jiro khasaare waa sida ay sheegayaan wararka hordhaca sidoo kale xogo hadda soo baxaya iyaguna waxa ay leeyihiin qaraxa wuxuu ahaa qarax miino oo la geliyay goob lagu madadaalo ama ay ku ciyaaraan dhalinyarada halkaasi joogto waxa loo yaqaano laadhuuda iyo soo kale turubka iyo waxyaabaha kale qaraxaasi nooc miina ayuu ahaa halkaasi ayaa la geliyay deetana waa uu qarxay khasaare ayuu geystay ay leeyihiin ila wareedyada aan helin laamaha ammaanka qaarkood oo aan xiriir la sameeyay iyaguna waxay sheegeen in weli aysan bixin karin wax faahfaahina oo qaraxaasi laga helayo qaraxan ayaa jugtiisa laga maqlay magaalada Muqdisho inteeda ugu badan lamana uu khasaaraha dhabta uu geystay tirada dhimasho ama dhaawac laakiin isgoyska ceelgaabta waa goob ay ku badan yihiin dhalinyarada isticmaasho walxaha maanka dooriyo ama drugska iyaga oo markaas darbajiifa ayayna halkaas ku nool yihiin khasaaraha ugu badan waxa laga cabsi qabaa in uu iyagu gaaray bacdama isgoyska habeen iyo maalinba ay u tahay gabaad oo iyagu ay yihiin waxa ugu badan ee halkaas ku nool marka laga tago dadka shacabka ay adeegsada wadadaasi ama mara si kastaba ha ahaatee Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay way ka xasilooneed qaraxyada iyo soo kale weerarada al-shabaab ay geystaan inkastoo al-shabaab laftirkooda weerar ay ku soo qaadayeen meelaha aan Muqdisho ka fogeyn sida ceelasha biyaha iyo soo kale xalaydan oo ugu dambeysay oo ay soo weerareen ama weerar ku soo qaadeen wadada xiriirisa Balcad iyo Muqdisho oo xitaa ciidamada dawladdu ay dagaal la galeen iyaga oo la sheegay inay gurmad heleen taa oo iyaduna cabsi kale oo weyn muujinaysa furimaha dagaal oo Muqdisho dhowr boqol kiiloomitir u jira ayaa lagu dagaalamaya al-shabaab oo maantadan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan aaga lama garas iyo soo kale deegaano kale ayaa lagu dagaalamaya laakiin iyaguna khatartooda wali waxay ka jirtaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya qaraxan wali dawladdu iyo soo kale laamaha ammaankuba faahfaahin kama bixin waxay soo kordho halkan in kugu soo gudbin doonaa